aragtida dunida ee duulaanka Ruushka ee Ukraine maalin walba wax badan ayaa iska bedela hab u fikirkooda qaarkood qorshayaal qaabayna ay durba quruumahooda kula ordaan xaaladda ayaa ka dhigta sidaas dareenadooda ayaana inta badan soo tabinaya walaacyo ku soo foole quruumahooda 10 sano ee uu joogay Pentagonka Christopher Scaluba waxa uu akhriyay warbixino iyo qiimeyn aan tiro lahayn oo ku saabsan militariga Ruushka iyo sida ay isaga hor yimaadeen ciidamada NATO hadda oo ka tagay oo uu daawaday duulaanka Ruushka ee Ukraine oo bila socda waxa uu leeyahay fariimo cusub oo loogu tala galay qorshayaasha difaaca mid kasta oo kamid ah qiimeynta uu akhriyay 10 sano la soo dhaafay waxa uu aaminsan yahay inay wax badan ka bedelan yihiin oo ay ka qaldan yihiin marka loo yimaado xaqiiqda jirta iyo guud ahaanba xog waraysiga duulaanka Kiev ku socda ee Moscow ka yimi dagaalka Putin sida dunida ula macaamisho duulaanka Ruushka ee Ukraine guud ahaan NATO qorshayaasha difaaca ayaa dib u qiimeynaya awoodda military ee Moscow ee qorshayaashooda ku meel gaarka ah haddii ay dhacdo dagaal caadi ah oo u dhaxeeya xulafada iyo Ruushka sida laga soo xigtay saraakiil badan oo Mareykan ah iyo kuwii hore ee difaaca Yurub dib u qiimeynta ayaa timi kadib dib u dhacyada military ee Moscow ee ceebta ah ee Ukraine ka soo hoyatay iyo sidoo kale rabitaanka Kremlinka ee ah in ay bilaabaan duulaan military oo dhameystiran oo mar kale dib loo qaabeeyo waxaa jira laba fikradood oo waaweyn oo ah in qorshayaasha difaaca ee caasimadaha waaweyn ee NATO ay qaldameen sanado badan xogahayihii hore ee NATO Andreas Fogh Rasmussen ayaa ku sheegay waraysi uu siiyay siyaasadda dibadda ugu horeyn waxa uu yiri waxaan qiimeynay awoodda militariga Ruushka inkasta oo maalgashi badan lagu sameeyay qalab ciidan iyo dib u furista saldhigyadii hore ee Sofiyeedka waxaan aragnay militariga Ruushka oo runtii la oran karo marna tayadiisa ayaa siyaaday marna daciifnimo xoog leh ayaa inoo muuqata qalmada kale waa in aan dhayalsanay naxariis darrada iyo hamiga madaxweyne Vladimir Putin ayuu sidoo kale xogayihii hore ku daray hadalkiisa la soco adduunka falanqaynta fikir kicinta hadda caasimadaha Yurub iyo waqooyiga Ameerika wasaaradda gaashaandhigga ayaa boorka ka tuuraya qiimeynta sanado ee jirtay ee awoodda dagaalka ee militariga Ruushka waxayna bilaabeen inay su'aal ka keenaan fikradaha muddada dheer ee ku saabsan sida uu u ekaan doono dagaalka caadiga ah ee u dhaxeeya xubnaha NATO iyo Ruushka hadday ahaan lahayd niyadda isgaarsiinta ama xitaa diyaar garow la'aanta waxaa jira arrimo fara badan oo soo kordhiyay shay aan filanaynin inaad ka aragto ciidan horumarsan mas'uulkan ayaa ka yiri ciidamada Ruushka xitaa haddii shuruudaha bilowga ah ama mala awaal ay ku galeen Ukraine waa la buriyay mid ka mid ah mowqifyada suurtagalka ee militariga NATO ay muddo dheer u diyaariyeen waa dhul degdeg ah oo dhulka Baltic ah oo ku yaal dhinaca bari ee NATO ee nugul xubnaha NATO waxay qorsheeyeen oo ay diyaariyeen oo la tusiyo ay dalalkaas uga soo celin lahaayeen ciidamada Ruushka iyaga oo u maleynaya in Ruushku uu si degdeg ah u jabin karo ciidankooda oo marka horeba qabsado dhulkaas kadib markii la arkay sida ay u liidato ciidamada Ruushka ee ka soo horjeeda ciidamada Ukraine qaar ka mid ah Mareykanka iyo qorshayaasha kale ee difaaca ee reer galbeedka ayaa ku riixaya NATO inay dib u qiimeeyaan qorshahaas waxay u muuqataa mid macquul ah iyada oo cabirka saxda ah iyo isku dhafka ciidamada isbahaysiga qaababka taliska iyo qalabka military ee gudaha Baltika waxay si wax ku ool ah u joojin karaan ama haddii kale waxay u adkeysan karaan oo iska celin karaan duulaanka ciidamada Ruushka dhinaca kale isku dayga Ruushku ku doonaya inuu ku galo dhulka NATO ee Baltikiska ayaa sidoo kale si lama filaan ah u muuqda xaalad aad uga yar filashada jirta hogaamiyaasha Baltiga ayaa la filayaa inay soo jeediyaan in NATO ay ballaariso raadkeeda gobolka marka la gaaro shir madaxeedka NATO ee ka dhacaya Madrid dhamaadka bisha June haddii la dhaqan geliyo saraakiisha Baltic waxay yiraahdeen cusboonaysiinta ciidamada NATO waxay u dhaqmi kartaa qaab wax ku ool ah oo ah ka hortagga diidmada ka dhanka ah Putin oo diyaarinaya qorshe kasta oo lagu qabsanayo dhulka Baltic
kadib markii ay arkeen sirdoonka Mareykanka ee duulaanka soo socda ee Ruushka. wadamada Baltic waxay rajeynayaan in dib u dhacyada sida Faransiiska iyo Jarmalka ay saxi doonaan qorshahooda muuqda hadda. xiriirka u dhaxeeya NATO iyo Ruushka oo maraya meeshii ugu xumeyd ee dagaalkii qaboobaa kadib, falanqeeyaasha qaar ayaa dareemaya in la joogo waqtigii la bilaabi lahaa gunaanad horudhac ah oo ku saabsan sida uu ekaan karo iska hor imaadka NATO iyo Ruushka haddii ay dhacdo inqilaabka Ukraine uu ku dhaco dhulka isbahaysiga. Andrea Kendall Taylor oo hore u ahaan jiray sargaal sare oo sirdoonka Mareykanka ah oo hadda la shaqeeya xarunta cusub ee NATO ayaa yiri qatarta sii kordhaysa wali waa ay jirtaa, sidaas darteed waa caqligal in qorshayaasha NATO ay ka fikiraan sida uu ekaan karo isku dhaca ka dhex jira NATO iyo Ruushka. ammaanka Mareykanka oo ah xarun fikir oo muhiim ah. xoghayihii hore ee gaashaanbuurta difaaca NATO, xubinta hore ee sirdoonka Mareykanka iyo falanqeeyaasha kale ee militariga ayaa ka digaya in dagaalka Ukraine uu aad uga fog yahay, waxaana suurtagal ah in Ruushka uu barto la qabsiga iyo hagaajinta ciidankiisa, gaar ahaan marka uu ka shaqeeyo sidii uu uga taqalusi lahaa guuldarooyinkii ka soo gaaray waqooyiga Ukraine iyo qabsashada dhulalka bariga Ukraine. waxaan horeba u aragnay ciidamo Ruush ah oo karti leh meelo ay ka mid yihiin Georgia iyo Syria iyo hadda xogaa ka sii badan Ukraine, ayuu yiri xogayihii hore ee gaashaanbuurta difaaca oo hadda ah agaasimaha hay'adda Atlantic Council Transatlantic Security Initiative. ma rumaysan karo in waxqabadka dhabta ah ee aan ku aragnay dhowr bilood Ukraine ay ka turjumayso dhammaan militariga Ruushka. tirada saxda ah ee qasaaraha ka dhashay dagaalka labada dhinac way adag tahay in la xaqiijiyo, balse waxaa cad in Ruushku uu horey u soo gaaray qasaarooyin laxaad leh. madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in ilaa 30,000 oo ka tirsan ciidamada militariga Ruushka la dilay, halka dowladda Britain ay ku qiyaastay in tiradaasi ay ku dhowdahay 15,000. laakiin Moscow waxa ay weli haysataa kayd aad u badan oo ciidan iyo askar loo qoray, xataa haddii aanay si liidata u tababaran oo qalabaysan, mana muujin wax damac ah oo ay kaga baxayso dagaalka. dagaalku ilaa hadda waxa uu lahaa laba waji oo kala duwan. weerar bilow ah oo lagu qaaday Kiev kaasi oo ku salaysan male awaal siyaasadeed oo aad u liidata oo ah in dowladda Ukraine ay ku burburi doonto maalmo gudahood, iyo dagaalka ka socda gobolka Donbass ee bariga Ukraine halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada ugu sarreeya Ruushka, saameyn badanna oo ay ku yeesheen. wajiyadii hore ee dagaalka dhibaatada ugu weyni waxay ahayd qorshaha halkii ay ka ahaan lahaayeen ciidanka, ayuu yiri Michael Kaufman oo ah qabiir ku takhasusay ciidamada Ruushka, isagoo yiri hadda waxaan ku jirnaa marxalad wanaagsan oo aan awood ugu leenahay inaan qiimeyn ku samayn karno guud ahaan hanaanka howlgal ee ciidamada Raashiyaanka. dhiirigelinta dagaalka waxaa jira heshiis ballaaran oo reer galbeedka ah oo ku saabsan in haddii Ruushka uu soo qaado weerar dhan walba ah iska caabinta militariga ee Ukraine oo waliba si dhaqso ah u burburin karta Ukraine. taasi waxay ka dhigaysaa tallaabo adag iyo qorshe wax ku ool ah, kaasi oo cadeeyay in qof walba oo qaldan yahay in laga bilaabo wax ka qabashada. tusaaluhu waa in laga bilaabo Putin ilaa qorshayaasha difaaca badan ee Washington. laakiin casharo toos ah oo laga qaato iska horimaadka NATO waxay noqon kartaa mid khiyaano leh, sababtoo ah tirada badan ee doorsoomayaasha ku lugta leh dhacdada tan. ma jiro wax la yiraahdo dagaalka guud ee NATO iyo Ruushka, ayuu yiri Kaufman. waxay ku xiran tahay halka, shuruudaha, qorshooyinka, ujeedooyinka dagaalka iyo mala awaalka dhabta ah ee muhiimka ah. tani ma aha shay ku jirta qorshaha kan. isku dhac kasta oo suurtagal ah oo u dhaxeeya Ruushka iyo NATO si kastaba ha ahaadee ayaa sidoo kale waxa uu si dhaqso ah uga sii dari karaa waxa ka socda Ukraine. dagaalka u dhaxeeya ciidamada dhulka oo kor u qaadaya qatarta ah in Ruushku uu soo qaato hubkiisa nuclear-ka ah ee aan la tijaabin, ayuu yiri Jim Townsend oo ah sargaal kale oo hore oo ka tirsan Pentagon-ka iyo qabiir ku takhasusay ammaanka Atlantic. waxaa jira wax badan oo ka mid ah awoodda militari ee Ruushka oo aan dagaalkan taaban ama lagu tijaabin dagaalka Ukraine. sargaalkan waxa kale oo uu ku dooday in NATO aanay u malayn in tiro yar oo ka mid ah ciidamada NATO ee tababaran oo si fiican u qalabaysan ay awood u yeelan doonaan inay iska difaacaan ciidan weyn oo Ruush ah. si kale haddii loo dhigo, sababtoo ah militariga Ruushka ayaa ka turunturooday albaabka Ukraine oo macnaheedu yahay in NATO aysan si fudud u neefsan.
ruushka waxa uu sameeyey mala doqonnimo ah oo siyaabo badan oo xun u dhacay waxaanan samaynay mala doqonnimo ah oo ku saabsan barnaamijkooda casriyeynta militariga ayuu yidhi waxaa jira sababo badan oo aan hadda nafteenna ku qiyaamayn karno inaan u malayno in ruushku nugul yahay runtii oo daciif yahay laakiin waxay tani ka turjumaysaa hab u fikir aan xaqiiqda wajihin lagana yaabo in ay la tacaali doonaan dhaqdhaqaaqyo dhaawacan dareenno didsan iyo duni dadaal dagaal hadda ruclo orod ugu jirta